wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda duulista iyo gaadiidka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo. wariyaheena Axmed Maxamuud Jaamac ayaa warkan eegaya. wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Salaad Omar ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ee qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa wasiirka waxa ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Jawhar ayaa warbaahinta la hadlay xilli uu wasiirka soo dhaweynayay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta waxaan soo dhaweynay wasiirka gaadiidka cirka ee dhulka iyo duulista hawada dowladda federaalka waxaan ku soo dhaweynay magaalada Kismaayo garoonka caalamiga ah isagii waqtigu hogaaminayo mudane wasiir soo dhaw waa deegaankaagi waa dalkaad wasiirka u tahay waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonkii waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Kismaayo goboleedka Jubbaland dhammaan aad iyo aad ayaan idin salaamay waan idin ka mahadcelinayaa runtii soo dhaweynta sida wanaagsan ee naloo soo dhaweeyay aniga iyo teamkayga ka socotay federal governmentiga oo u timid halkan in aan assessment ku sameeyna airportka magaalada Kismaayo airportkan oo kamid ah airportada ugu waaweyn Soomaaliya ahmiyad weyn u leh dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa aan u soo gaarnay si aan u sameeyno assessment aan ku fiirinayno amniga oo ah shayga koowaad ee dhinaca duulimaaska hawada amnigiisa ayaan rabnaa inaan assessment ku sameeyno technicalka ah ee nala sameeyay way nala socdaan. sidoo kale safarka wasiirka waxa ku weheliyay fanaanka weyn ee geyga Soomaalida iyo caalamkaba aadka looga yaqaan ee ku caan baxay tumida dhaantada ee loo yaqaano Ali Dhaanto. waxa uu Ali Dhaanto qudhiisa ka hadlay imaanshihiisa Kismaayo iyo sida uu u arko. wad ma santiin agaasi jaamacadan oo ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo agaasimaha TV-ga labaduba waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiinan adiga iyo baahda bulshooyinka ku dhaqan magaalada Kismaayo ee Jubbaland abwaanada iyo fanaaniinta iyo kooxda dhaqanka iyo oday dhaqameedyada iyo wasiirada ka socday xukuumadda dhammaan aad baan ugu mahadcelinayaa soo dhaweyntiina sida sharafta leh aniga saaxiibka baafabaana labada cod isku daraaya aad baan idinka mahadnaqaynaa waadna ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina sharafta leh run ahaantii aniga ninka baa markii noogu horeysay magaalada nimaadno muddan soo guurguuranaynay oo islahayn taga laakiin maanta Ilaahay saamaanka soo qaaday run ahaantii waan ku faraxsanahay inaan joogno magaalada Kismaayo oo nimaadno waxaan ku faraxsanahay inaan bisha 30keeda oo bari damba inaan bulshada reer Kismaayo qaybta da'danada inaan la dhaantayno. wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay inuu Kismaayo u yimid dardargelinta hawlaha shaqo ee wasaaraddiisa gaadiidka isagoo ka warbixiyay inay qorsheynayaan dib u dhiska garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Axmed Maxamuud Jaamac, Jubbaland TV, Kismaayo.